من خشي ربه قفك ربك كبقى اسكالبو الله إلهي سبحانه وتعالى ورددو دد أهل الجنة نقضى ورددو جدكي جنة قاضى ورددو جنة أهل بيلاذهي camal lagu samaysto oo loo qabsado ayay leedahay sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu abaalgudaa qof allaala qofka maanta awaamirtiisa fuliya amarkiisa ku dadaala daacada ilaahay kor u qaada diinta islaamkana nooleeya oo sunnada nebiga kor u qaada oo sunnada nebiga ay ka muuqato ninka noocaasaa loogu talagalay inuu ilaahay ugu abaalgudo subxaanahu wa tacaala aljanna wamaa adraaka ma aljanna maxaa ku ogeysiiya janna waxay tahay janna waxay tahay yaa ku ogeysiiya yaa iskale marka hore jannada wahiya liman taaba alkalaam qofka hadalkiisa tiib noqda qofka hadal fiican ka soo baxa afkiisa waa liman ataaba alkalaam wa atcama atacaam tacaamka quudiya masaakinta raashin siiya wa baata qaa'iman wannaasu niyaam habeenkii istaaga markay dadku hurdayaan markay dadka hurdayaan kii kacay ayaa iskale ninka masaakiinta cuntada siiyey ayaa iskale qofka hadalkiisa tiib ka dhigay afkiisa tawxiid iyo khayr iyo wanaag iyo diin iyo dacwo iyo xaq ka soo baxa iskale ninka noocaasa ayuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala wardadow rabbigiina ka cabsada ayuu yidhi xajatulwadaac nebiga intuu istaagay xajatulwadaac ayuu yidhi dadow ittaqu allah ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala wasalluu khamsakum shantiina tukada war bishiina sooma xoolihiina sakada ka bixiya wa atiicuu umaraa'akum madaxdiina ateeca tadkhuluu jannata rabbikum rabbigiin jannadiisa aad gasheene war jannada rabbi aad hesheene shantaa arrin la imaada wartoo koowaad taqwo la imaado ilaahay ka cabsada war waxyaabaha beentii baatilka iska daaya war qabiilaadka aad dadka isugu wacaysaan iska daaya war fisqiga iyo kidbiga iska daaya war wuxuu ilaahay idinka xaaraantilmiyey ka xishoodoo ka taga yaa ayuhannaas ittaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada shanta salaadood ha ka tegina jannadaa lagu galaaye shanta salaadood hagaajiya ramadaanka marka la gaaro sooma oo soonka la imaada ka bixiya xoolihiina sakada lagu leeyahay war ragga idin madaxda ah fawdada iyo dhibka ka daaya oo ateeca oo diinta alla ku ateeca oo garabkooda istaaga oo fawdo iyo dhibaatayaysan dhicin muslimiinay dad kala dambeeya noqda war umaro iyo madax yeesha shantaa haddaad la timaadaan jannada ilaahay ayaad gelaysaan dumarka ayuu si qaasa ula hadlay nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam dumarka ayuu si qaasa ula hadlay hadallada uu kula hadlay waxaa ka mid ahaa mar allaala markuu la hadlaayey ee marka uu la dardaarmahayey mar allaal taas waxay ahayd caam oo si caam ahaan ayuu ugu tilmaamay inay jannada ilaahay sidaa ku gelayaan subxaana wa tacaala dumarka markuu sida qaaskaa ula hadlayay wuxuu yidhi gabar allaala gabadhii shanteeda tukata gabar walba oo shanteeda salaadood tukata buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo haddana jasadkeeda ilaalisa macnaa farjigeeda macaasida iyo xumaanta ka ilaalisa shanteeda way tukatay bisheedii ayay soontay ninkeedii ayay ateecday farjigeeda ayay xafiday jannada ilaahay ayay albaabkay doonta ka kelaysaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam yaa nisaa war dumarow fiiriya sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala gabar allaala gabadhii shanteeda tukata xataa sunno ma ku darayso iska daa xataa haddaad doonto shanta waajibkaa xoogga saartay adkaysaa sidii loogu talagalay uga soo baxday u dukataa bisha ramadaankaa soonta xilliyada laga fasaxay maahane bisha ramadaanka ahna soonta ninkeeda maqasha oo amarkiisa qaadata oo ateecda waa ta saddexaad haddana cirdigeeda iyo sharafteeda xafida oo ilaalisa 8 jana albaabaheeda loo furaa markaasaa la yidhaahdaa mid allaala middaa doonta markaa ka gal mid allaala middaa doonta ka gal jannada gelitaankeeda camalkaa fiican ee la qabtaa lagu galaa laguna helaa intaa ka bacdi aan ka bilowna dadkii oo ka soo baxaya qubuuraha kaafir caaba ka hadli mayno ilaan janno ma laha
nin ilaahay dulmiye maanta ka hadli mayno waayo janno ma laha. qofka ahlu naarka maanta ka hadli mayno, meesha waxa yaalla waa janno, waa silca ilaahay. sidcada ilaahay waa qaali subxaana wa tacaala. dadka mu'miniinta marka ay ka soo baxayaan qubuurta mar allaala markay ka soo baxayaan waa la soo dhowaynayaa, wafdi ahaan ayaana loo soo wadayaa. yowma naxsharu almuttaqiina ila araxmaani wafdan, waa wafdi. walaalayaal ma aragteen wufuudda adduunka gawaarida lagu qaado, sida waddada loo sharxo oo loo xardho caleemaha qoyan loogu lulo? waa wafdi adduunka ayuu wafdi ku yahay. maanta yaa wafdi ah? qof mu'min ah yuu wafdi u yahay rabbulcaalamiin subxaanahu wa tacaala. yowma naxsharu almuttaqiina ila araxmaani wafdan, waa maalintoodii. way ka soo baxayaan qubuurta, wafdi ayagoo ah ayaa lasoo bixinayaa. wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirdan, kaafiriintana waan qominaynaa dhanka jahannama ayagoo oomanoo la jiidaya buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. wafdi noqo walaal. maalinta qiyaamaha caalamiinta rabdigooda ayaad wafdi u tahay. wafdiga adduunka waan majeersan maanta wallaahi. mar allaala marka la soo dhowaynaya niyaddeenna si kaley noqotaa. war sawiro allaha raxmaanka ah qofka wafdi u ah subxaana wa tacaala. war melikulmuluuk boqorka boqorada subxaanahu wa tacaala, maalintaa wafdi ayaad u tahay. waa laga soo kaxaynayaa qubuuraha ayagoo wufuud ah. macsharka qiyaamaa la keenaa. maxaa loo keenayaa? in la xisaabo. see waaye xisaabtankooda? waa xisaab yasiir ah, waa xisaab sahlan oo fudud, waa xisaab aad iyo aad u qiimo badan. sidaa darteed ayuu ilaahay siinayaa kitaabo lagu kala tilmaamayo ama lagu kala soocayo inay janno helayaan iyo inay naar markaa helayaan. fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa'umu iqra'uu kitaabiyah innii danantu annii mulaaqin xisaabiyah. kaalaya kitaabkayga ila akhriya, warqad baa lay siiyey, gacanta midigtaa layga siiyey, jannadaad gelaysaa aa ku qoran. wax ka nasiib badan ma laha qofka ilaahay kitaabkiisa gacanta midigta ka siiya ee maalintaa laga badbaadiya cadaabka qaaciisa iyo xanuunkiisa iyo alamka markaa jira. gacanta midigtaa kitaabkiisa looga dhiibay waxay tilmaan u tahay inuu jannada gelayo. innii danantu annii mulaaqin xisaabiya, xisaabkan inaan la kulmayo waa malaynayey. fa huwa fii ciishatin raadiya fii jannatin caaliyah buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waa laga soo kaxaynayaa dhanka waxaa la keenayaa miisaanka, camalkiisaa la miisaamayaa. faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum almuflixuun. dhinaca haddana wuu ka soo baxay. ijraa'aad baa lasoo marayaa. kitaabkiisii gacanta midigtaa looga dhiibay. waa sifa iyo calaamad inuu ahlu janno yahay. dhanka miisaankaa la keenayaa, waa la miisaamayaa. miisaankiisiibaa cuslaaday. faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum almuflixuun. waa liibaanay, waa aflaxay oo markaa wuu liibaanay. waa ka soo tegayaa, goob kale ayuu imaanayaa. ilaa 50 mowqif ayaa la soo marayaa qiyaamaha. meel kasta uu yimaado malaa'ig baa la socotaa. maalintaa marka la gaaro waxay odhanaysaa naxnu awliyaa'ukum, annakaa idinla jirna, haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun. ha baqina, hana cabsanina, hana murgoonina. garbahoodaa markaa la taagan yahay ahlu jannaha. walaalayaal iskama aysan helin, diin bay ku dadaaleen, daaco ilaahay bay qaateen, adduunkay gaajoodeen, hurdaday ka tageen, diin allay ku dhaqaaqeen, awaamirta ilaah bay fuliyeen. maalintaa ijraa'aadkooda waa loo fududaynayaa, waa loo khafiifinayaa, bishaaruu ilaahay siinayaa subxaanahu wa tacaala. intaa ka bacdi way ka sii dhaqaaqayaan, way ka sii gudbayaan. darka rasuulkay tegayaan sala allahu calayhi wasalam. waa cabayaan cabitaan. maalintaa wixii ka dambaysan weligood haraadii oon qabanaynin ma oomayaan buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. gacantiisa shariifada ayuu ku waraabinaa. kawthar baa la siinayaa. kawthar bay ka cabayaan, webi bay ka cabayaan. nebiga uu ugu talagalay sala allahu calayhi wasalam, ilaahay uu ku maamusay subxaanahu wa tacaala. ilaahay nebigiisaa gacantiisa ku siinaya, nebiga ilaahay ayaa cabsiinaya. way cabayaan, ummad baa ku soo dhex dhuumanaysaa. garuun baa loo qaadan sida nebiga tilmaamay, sida hasha baadida ah. halaha kale markay soo dhex gasho oo ay damacdo inay darka la cabto, ninka halaha iskale uu garuumeeyo, uu xabadka uga dhufto, uu wejiga uga dhuftay dib u cararaan buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. waa naxayaa, waxaan odhanayaa haaulaa'i asxaabii, kuwa asxaabteeday kama yihiin, maxamedow daabaa laygu odhanayaa. waayo gadaasha ay diinta ku cayaareen, bidca iyo
bay la yimaadeen markaad ka soo dhimatay diinta ilaahay diideen awaamirta ilaahay ayay qaadan waayeen ilaahay diintiisa ayay dhinac ka mareen faraha ka qaad suxqan baan oranayaa buu yidhi oo kale ilaahayow in allaala intaan aniga dhex joogay waaba dhex joogay falamaa tawafaytanii kunta anta araqiib adigaa raqiib iiga ahaa wa anta calaa kulli shayin shahiid shay kasta adigaa markhaati ka ahaa ilaahayow ummaddaydii waay in tucadibhum haddaad naarta ku shubto fa innahum cibaaduka waa addoommadaada cid ku qabsanaysa male wa in takfir lahum haddaadse iska cafisa alla dembi dhaaf badan oo cafin badan baa tahay saasaan odhanayaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam aljanna wamaa adraakum aljanna weli way sii soconayaan way dhaqaaqayaan jahannamaa meeshaas loo dhigayaa xataa ahlu jannihii korkeedaa siraadkii la saarayaa markaasaa la gudbayaa sida nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam sida ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala wa in minkum ilaa waariduhaa axad jira ma jiro ilaa jahannamuu aroorayaa kaana calaa rabbika xatman maqdiyan waa arrin ilaahay gooyey subxaana wa tacaala kaana calaa rabbika rabbiga xaggiisa waxay ku tahay xatman maqdiya wax xatmi ah oo la maqdiyey oo markaa la gooyey taasay ka tahay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qasab laakiin dadkan waa mu'miniin waa gabdha mu'minaad ah indhahooda xumaan kumaysan fiirinin jirkooda way qariyeen way xijaabteen kuleel oo jiray xijaabteen qabow oo jiray xijaabteen ayagoo la caynayay xijaabteen ayagoo lagu yaabayay xijaabteen ayagoo dadka laga soocayay xijaabteen xaaladoodaa sidaa ahayd sidaa darteed wiilashiina xaqay ku dadaaleen diinta allay ku socdeen naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooday markaa u hureen sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay ayagana maalintaa inaan la joojininba inaan markaa la joojininba saasay xaaladoodu tahay arrintoodaa saas ahayd oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay wanaagga iyo khayrkaa inay gaaraan sharaftaa iyo karaamadan iyo cizigaa inay helaan awaamirtaa ilaahay inay ku dadaaleen darteed ayay u gudbayaan macnaha intaa markay soo maraan oo ijraa'aad ah intaasoo ijraa'aad ah markay soo galaan oo ay sameeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa iyo awaamirtiisa iyo khayrkiisii ay fuliyeen markaasaa jannadii loo tallaabsanayaa marka jannadii ayaa markaa loo tilaabsanayaa waa la gelayaa rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam awal zumra jameecada ugu horaysa ee jannada gelaysaa suuradooda iyo bidhaantooda waxay la mid tahay buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam qamarka oo 14 oo kale ah dayax 14 oo kale ah ayagoo ah ayay gelayaan jannada saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam awalu zumratin yadkhuluuna aljanna calaa suurati alqamar dayaxa quruxdiisii oo kale waay oo leylata albadri habeen 14 ah kuwa ku xigana waa sida xidiga ugu iftiinka badan xagga samada xagga iftiinka saasay markaa ku galayaan suuradooda waa la qurxiyey waa la bitaamiyey waa la qiimeeyey sidaa darteed ayaa xadiiska nebiga waxa uu ku tilmaamay yabcathu allahu alrijaal min ahli aljanna calaa suurati abiihim aadam aabbahood aadama suuraddiisii oo kale ayay ku gelayaan weliba ayagoo jarda ah saasay markaa ku gelayaan ayagoo jasadka intiisa kale ayagoo mataqaanaa indha kuulan oo ilaahay uu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala da'doodu waa 3 sano kiiba waa waxaa xilliga qofka bini aadamka ah dhexdhexaadka cimriga uu markaa maraayo xilliga loogu talagalay inuu aad u raaxaysto waa xilliga noocaas ah jameecada ugu horaysaee jannada gelaysa saasay markaa la mid yihiin suuradii ayay wataan ama qamarka oo kale markaa ah laa yabuuluuna walaa yatawaaqatuun ma saxaroonayaan jannada gudaheeda ma kaadinayaan buu dhahay nebiga ma candhuftufayaan ma xaakoonayaan intaasoo wanaag buu ilaahay isugu daray subxaanahu wa tacaala jannada mar allaala marka ay galaan khayrka iyo wanaaggaasay markaa ku arkayan walaa yatamakhatuun amshaatuhum addahab shanladoodu waa dahab dhididka ka soo baxaya waa miski oo kale buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam sida nin u soo carfayaa hore maxaan u soo tilmaanay dad shaqeeyo abaalgud la siiyey abaalgudkan wax u dhigmaa ma jiro abaalgudkan oo kale ma sugnaanin abaalgudkan oo dhan weligiis lama sheegin oo kale sidaa darteed ayaa idin uunsigoodu xataa wuxuu noqonayaa geedka uluwiga la yidhaahdo waa geed aad marka u carfaa
kaasay markaa gelayaan oo arrintaasuu ilaahay siinayaa subxaanahu wa tacaala. jannadii baa lagu soo dhoweeyey, jannadii ayay yimaadeen, jannadii ayay markaa ka cunayaan. sidaa darteed baa rasuulku xadiis kale waxa uu ku tilmaamay ya'kulu ahluljanna fiiha, ahlu jannaha jannaha gudaheeday wax ku cunayaan, wayashrabuun wayna cabayaan. ma saxaroonayaan, ma kaadinayaan, ma xakoonayaan. raashinka ay cuneen wuxuu uga soo bixayaa rish sida dhidid oo kale. dhididkooda waxaad u malaysaa sidii miski oo kale markaa asagoo ah. waxaa lagu ilhaaminayaa tasbiix iyo takbiir say neefta uga soo baxda oo kale. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu xadiis ku tilmaamay yidhi waxaan u diyaariyey addoommadeyda saalixiinta maa laa caynun ra'at, waxaan weligood indho arkin, walaa udunun samicad, dhegana aan maqlin, walaa qatara calaa qalbi bashar, bani aadam qalbigiisana aan markaa ku soo dhicin. bani aadam qalbigiisa aan markaa ku soo dhicin ayay ku helayaan. jannada idan waa meel aad iyo aad u nimco badan, waa meel aad iyo aad u khayr badan, waa meel ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay dadka khayrka iyo wanaagga shaqaystay ee awaamirta ilaahay ku dadaalay oo taacada ilaahay kor u qaaday subxaanahu wa tacaala. maalin kasta oo jumco ah dadku way baxayaan, suuq baa la tegayaa. suuqaa mar allaala marka ay tagaan dabayl baa soo kacaysa. dumarka adduunka waxaa looga tegayaa khaymadda, waa xuuralcayntii. ayaga ragga keliya markaa baxaya, dabayl baa kacaysoo dhanka shimaal intay ka timaado yay wejigooda iyo dharkooda waxay u siyaadinaysaa qurux iyo jamaal. qurux bay u siyaadinaysaa, ehelkooday u soo noqonayaan galabtii. markay yimaadaanoy ehelka u soo noqdaan gabdhihii way yaabayaan, waxay leeyihiin ragow maxaa dhacay, sidii aad saake nooga tagteen ma tihiin, idinkoo qurux iyo jamaal idiin soo korortay ayaad noo timaadeen. raggii waxay odhanayaan ayagana wallaahi idinkaba ma tihiin saan idinkaga tagnay, markaad idiin soo noqonay waxaa idiin siyaaday xusnan wa jamaalan, qurux ayaa idiin siyaaday iyo jamaal. maalinba maalinta ka dambaysa qurux baa u kordhaysaa iyo shaabnimo. abi hurayra wuxuu yidhi waaladii anzala alkitaaba calaa muxamed, macbuudka kitaabkii ku soo dejiyey nebi moxamed ayaan ku dhaartaye ahlu jannuhu layasdaaduuna kulla yawmin jamaalan, maalin kasta waxay siyaadsanayaan qurux iyo jamaal. jamaalan oo xasanan kamaa yasdaaduuna fi dunyaa haraman, sida adduunkay odaynimo iyo duqnimo ay u siyaadsadaan. sanadba sanadka ka dambaysa waa la duqoobayaa adduunka, sanadba sanadka ka dambaysa qofku waa sii daciifayaa, sanadba sanadka ka dambaysa xibnihiisi waa isbeddelayaa. sidaa darteed jannada marka ay galaan maalinba maalinta ka dambaysa waxaa u siyaadaya qurux iyo jamaal iyo ziino. ilaahii nebi moxamed kitaabka ku soo dejiyey ayaan ku dhaartay buu yidhi. idan ahlu jannuhu maalintaa waxay arkayaan soo dhoweyn aad iyo aad u qiimo badan, waxay arkayaan soo dhoweyn aad iyo aad u sharaf badan. wasiiqa aladiina taqow rabbahum ila aljannati zumaran, dadka muttaqiinta waa la kaxaynayaa, rabbigood xaggiisaa la geenayaa ayagoo zumar iyo jameeco ah. xataa idaa jaa'uuhaa wafutixat abwaabuhaa waqaala lahum khasanatuhaa salaamun calaykum, nabadgelya korkiina ha ahaato, tibtum fadkhuluuhaa khaalidiin, waad dhiib noqoteene kuwaaraa markaa la leeyahay. meeshaa ku sugnaada. jannadu waa meel aad iyo aad u karaamo iyo cizi badan. jannadu waa meel qof allaala qofkii gala uu hilmaamaya dhibaato kastoo adduunka markaa jirtay. ilaahay asagoo tilmaamaya ayuu markaa yidhi ulaa'ika lahum risqun macluum, risqi macluum ah ayay leeyihiin. fawaakihu wahum mukramuun, fawaakih lagu raaxaysto ayagoo la karaamayo. hadday istaagaan way la eg tahay miraha goosashadeeda, hadday jiiftaan way la eg tahay, hadday socdaan way la soconaysaa, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. wadullilat qutuufuhaa tadliila, meeshay goostaan way soo baxaysaa, meeshay wax ka gooyaan mataqaana isla markii way tahay. fawaakihu wahum mukramuun fii jannaati naciim, jannooyin naciimay ku dhex sugan yihiin. calaa sururin mutaqaabiliin, suruurayaalo ayagoo saaran bay isqaabilayaan. yutaafu calayhim bika'sin, waxaa lala dawaafayaa galaas qamreed oo min maciinin, il xaggeeda ka ahaatay. jannaday qamre ku cabayaan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. baydaa'a ladatin lishaaribiin, way caddahay khamrada jannada, wayna macdahay dadka shaaribiinta ah. laa fiihaa qawlun walaa hum canhaa yunsafuun, isku dhacdhac iyo hadal badni iyo inuu qofku kaadii waxyaabo kale ay ka timaado iyo waxaasoo dhan male buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ahlu janno jannada ayay gelayaan. ilaahay ayaa ku sooray subxaanahu wa tacaala. aayado kale asagoo jannada ilaahay nooga hadlaya wuxuu yidhi haadaa dikrun wa ina lilmuttaqiina la xusna ma'aab.
muttaqiinta marjic wanaagsan bay leeyihiin jannaati cadnin mufataxatan lahum alabwaab waa jannooyin nagaadi ahoo albaabaha ay u furfuran yihiin muttaki'iina fiiha yadcuuna fiiha bifaakihatin kahiira way ku dangiigaan waxay u wacanayaan faakihaad kasta oo fara badan iyo sharaab ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala dumar xuuralcayn oonan arki doonno say u yaalaanna waa agtooday joogaan haadaa maa tuucaduuna liyowmi alxisaab waa wixii maalinta xisaabka laydiin ballanqaadayay war sabra jirada ku sabra jannaad leedihiin war sabru diinta ku sabra jannaad leedihiin haadaa maa tuucaduuna waa wixii laydiin lahaa liyowmi alxisaab ina haadaa la risqunaa maa lahu min nafaad ka risqigeennii waay go'itaanna mala buu yidhi ila subxaana wa tacaala wax nafaad ah ma laha kala go' ma laha ma kala go'aya raashinka jannada maxay cabayaan oo ay jannada lagu siinayaa ilaahay sida uu tilmaamay fiiri subxaana wa tacaala mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun jannada muttaqiinta loo diyaariyey mathalkeeda fiihaa anhaarun webiyaalaa ku jira oo min maa'in biyo ah biyaha intaad ashuun qaadatay iyo jiirigaan iyo caag ma soo dhaaminaysid waa anhaar webiyaala meeshay socdaan min maa'in hayri aasinin aan isbeddelaynin wa anhaarun min laban waa webiyaala malab ah lam yatagayar طacmuhu dhadhankiisa aan doorsoomayn wa anhaarun min khamrin tuwa khamro ladatin lishaaribiin wa anhaarun min casalin kuwa waa malab musafan oo la saafigareeyey oon waxba markaa lagu darin intaana loo tilmaamayo waxaan indhaha arkin baa ka badan waxaan dhagaha maqlin baa ka badan waxaan qalbi bini aadam ku soo dhicinba ayaa ka badan walahum fiiha min kulli hamaraatin miro kasta waa la siinaa buu dhaha ilah subxaana wa tacaala makfiro iyo dembi dhaaf war nin saa loo ikraamay oo caano la siiyey oo biyo la siiyey oo malab la siiyey oo khamro la siiyey kaman huwa khaalidun fi nnaar nin naarku waaraya ma isku midba oo wasuquu maa'an xamiiman biyo kulul la cabsiinayo oo faqataca amca'uhum mindhiciradiisu ay go'go'ayaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala qofna meeshaasuu ku jiraa naartii mindhicirkiisaa go'go'aya qayluu ku jiraa waa cataabaya waa qaylinayaa dhibaatuu sheeganaa hoog iyo ba iyo dhibaato ilaahayow naga bixi ilaahuw ciidoo kale naga dhig ilaahuw saana yeel ilaahuw dib damba wax u samayn mayno oo xumaan ah ilaahayow saas ayay ku jiraan qolana nimcadan iyo tamatucaanay ku jiraan saanay u raxaysanayaan khayrkaanuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala jannooyinka naciimada ah ee nagaadida ah iyo wewebayaalka kala noocnooca ah ee kala dardaran ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala marka labadaa qofka wuxuu doono ayuu markaa dooran karaa jannada aad bay u qiimo badan tahay jannada aad iyo aad bay u sharaf iyo qiimo leedahay qof allaala qofkii maalintaa taga unbaa ka sheekayn karee ma aha wax la tilmaami kara wanaaggeeda haybadeeda quruxdeeda waxa meesha markaa ku jira ahlu jannaha ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala ahlu jannaha ayuu ilaahay saa ugu talagalay subxaanahu wa tacaala ahlu janna maxay leeyihiin ilaahay asagoo tilmaamaya qof allaala qofkii ka cabsada maqaama rabbihi jannataan laba jannaa la siinayaa dhawaata afnaan oo miro u saaxiiba buu dhahay ila subxaana wa tacaala dhawaata afnaan fiihimaa caynaanin tajriyaan waxaa ku sugan caynaan iyo ila tajriyaan ahoo soconaya buu dhahay ila subxaana wa tacaala fiihimaa min kulli faakihatin zawjaan nooc kasta laga siiyey oo faakihaad ah asagoo laba nooc markaa ah waa ahlu jannaha kaasuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala muttaki'iina calaa furushin waxay ku dengigaan firaashyaalo oo bataa'inuhaa min istabraq waxa hoosta laga geliyey waa xariirta istabraqee adag waaye marka oo qofka sariirta loo goglo oo joodariga la saaro joodariga mara korka looga xiraa hoosna waa usbuunyo ama waa suuf ama waa qumbe laakiin kan waxa hoos laga geliyey ayaa xariir ah waxa kor laga saaray muxuu noqon doonaa marka waa lama tilmaami karo muttaki'iina calaa furushin bataa'inuhaa min istabraq wajana aljannatayni daan labadaa janno miraheedana waa loo soo dhoweeyey buu yidhi ilah subxaana wa tacaala aayad kale muxuu ilaah ku yidhi yatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun wiilal la waariyey ayaa u shaqaynaya waa lagu shaqaynaa waa laguu adeegaa wax kasta ayagoo laguu tashiilay ayaa haddana qaadin iyo shaqale laguu sameeyey yatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuuraa wiilashaa shaqaynaya markaad fiiriso waxaad u malaysaa luul la firdhiyey quruxdooda war kii qaadimka ahaa ee kushiinka ku jiray ee dhulka xaaqaayay hadduu luul oo kale noqday ka warrama kan loo shaqaynayo adduunka ka soo qaad midka gabadha ee guriga u sarraysa ee ayada iska leh inta ay xino marsatay cilaamato ay dahabga gashato
ay firaash fadhiisato ay dhar fiican guntataa. gabadha maskiinta u shaqaynaysana waa raf, waxay ka soo baxaysaa kushiinka, qaac bay leedahay, dhulkay xaaqaysaa, wasaq bay leedahay. labadaas saasaa loogu talagalay. amaa jannada marka la tago, wiilashii shaqaynaya buu ilaah yidhi waxaad u malaysaa lul la firdhiyey oo kale, lu'lu'an manhuura. waidaa ra'ayta hama ra'ayta naciiman wa mulkan kabiiran. adig lagu shaqaynaya seed noqonaysaa, way ka sii daran tahay. markaasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala markii firaashkii la siiyey, fiihinna qaasiraatu darfi, gabdha araggoodii gaabiyey ayaa meesha jooga. lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan, uusan horay jinni iyo insi u soo taabanin. waa xuuralcayn wa xuurun ciin ka amhaali lu'lu'i lmaknuun. gabdhaha ahlu jannaha ah waxay leeyihiin wiilasha mu'miniinta xuuralcayn aad mooda luul la firdhiyey oo kale, gabdhaha adduunka oo kale aan ahayn. walahum fiiha aswaajun mutahara, gabdha daahir ah buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. islaan duq ahaa nebiga u timid, markaasay tiri yaa rasuula allah, ilaahay ii bari inaan jannada galo. cajuuso jannada ma gasho buu dhahay nebiga sal allau alayh wasalam. way ka sii jeesatay, way oysay. markaasuu nebigu yidhi war u sheega, ilaahay baa soo dejiyey, inna ansha'naahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban liasxaabi alyamiin. waan amaamudaynaa amaamudid cusub. macnaha ayadoo saan u duqowday oo saan waayeelu ah jannada geli mayso. waa la shaabinaa, waa la dhalinyaraynaa, waa la soo dejinayaa. waxaa laga dhigayaa ansha'naahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran sub oo ayaa laga dhigayaa curuban, raggooda jeceloo atraab aho isku da'a, 33 sanaysan ka weyneen. 33 sano kama weyna, way ag fadhiyaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. xuuralcaynta wuxuu ilaahay ugu talagalay wiilasha muslimiinta ah. waa gabdho lagu qalqay aakhiro oo jooga jannada, inay ayagu ku raaxaystaan buu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. waa gabdho bikaarayaal ah, waa gabdho cusub, waa gabdho khayr badan, waa gabdho naacimaad ah. sidaa darteed ayaa waxay leeyihiin baa la yidhi hadda intay jannada ku jiraan, annagu waxaan nahay naacimaad, weligeen baas arki mayno. waxaan nahay khaalidaad oo waa waaraynaa, weligeen dhiman mayno. waxaan nahay kuwa khayr iyo wanaag ku dhex jiraa. waxaa laan janna ay u sugnaatay iyo barwaaqo ninka annaga noo sugnaaday, asagana aan u sugnaanay. saasay markaa ku hadlayaan. wiilasha mu'miniinta u dadaala, jannada wuxuu ilaah kugu talagalay qofka inuu siiyo halkii ninba 72 dumar oo xuralcayn ah, kaasuu markaa ugu talagalay. see loo kari karaa baa la dhahay nebiga sal allau alayh wasalam. markaasuu nebigu yidhi nin kasta ilaahay wuxuu siinayaa subxaanahu wa tacaala 100 rajul quwadiisa, xagga cunidda, xagga cabitaanka, xagga jimaaca, xagga la dhaqanka naagaha. 100 nin awooddoodu ilaahay siinaya subxaana wa tacaala. waa 72 naag halkii nin oo ahlu janno ah. taasuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. wanaag fara badan buu ku leeyahay. gabdhaha mu'minaadka ah macnaha gabdhaha xuralcaynta ah ee jannada ku jira khayr fara badan bay leeyihiin. ilaahay aswaaj mutahara ayuu ku tilmaamay, luul maknuun ayuu ku tilmaamay, kaannahunna bayd maknuun oo kun la ilaaliyey oo kale. gabdhaha agtooday joogaan, ayagay ag fadhiyaan. ilaahay muxuu ku tilmaamay mar kale, fiihinna khayraatun xisaan, waa gabdha khayr badan oo qurux badan. fabiأyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. xuurun waa cadcad, maqsuuraatun fi lqiyaam, waxaa lagu gaabiyey qiyaamka. waa mutahir, wasaq ma laha, candhuuf ma laha, xayd ma lahan, kaadi ma laha, wax ay leeyihiin ma jiro. wax kastoo min aqdaarta dumarka adduunkay leeyihiin oo kale ma laha, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. wiilasha muslimiinta ha sabraano, hana u dulqaataano dhibaatada adduunka, ha ogaadaano xuralcayn inuu ilaahay u diyaariyey subxaana wa tacaala. weliba rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, naag ninkeeda adduunka kuma dhibto ilaa hadday dhibto tii xuralcaynta ee jannada uu ku lahaabaa soo hadlaysa oo dhahaysa laa tu'diihi qaatalaki illaah, naa allah ku dulaya ninka ha iga dhibin, innamaa huwa cindaka dakhiil, marti buu kuu yahay, kooytuu kuu yahay, dhibka ka daa, naa dhibka ka jooji. way soo hadlaysaa buu yidhi nebiga. tii baa hadlaysa, xuuralcaynta ahayd, waxay la soo hadlaysaa tii adduunka joogtay, guryanka badnayd, khaylada badnayd, ariga badnayd. ninkii u sabray una dulqaatay waa loo jawaabaa. intaadan adi u jawaabin caaday ku caysaa xuuralcayn hadlayso, ay leedahay laa tu'diih, naaha dhibin, qaatalaki illaah, allah ku duleeye, innamaa huwa cindaki dakhiil, marti buu kuu yahay, kooltuu kuu yahay, dhowr maalmood buu kula joogayaa. yuushaku an yufaariqi ilayna, degdeg buu noogu imaan doonaa.
anagaa soo dhowaynaynaa, anagaa dhibaynin, anagaan waxyaabo kale samaynaynin, waxaan uga dhigaynaa soo dhowaasho aad iyo aad u qiimo badan. wax allaala wuxuu doonuu ka helayaa, ma lahan mataqaanaa indhataag, ma laha hanqaltaag, ma laha hanaaso, ma laha masayr, ma laha dhibaato kale, ma laha allaab la jejebiyo, ma laha dhibaato kale. waa xuuralcayn. xuuralcayn waaye. ilaah subxaanahu wa tacaala baa jannada ugu dhex qalqay wiilasha mu'miniinta ah. ilaahay aayad kale asagoo ku tilmaamaya wanaagooda muxuu yidhi wa kawaaciba atraaban, waa gabdho kawaacib ah. astaanta naaganimada naasahooda uu yahay mid habkii loogu talagalay ahoo ay ku raaxaystaan wiilasha mu'miniinta ah. saasuu ilaah ugu tilmaamay subxaana wa tacaala wa kawaaciba atraaban. waa isku da' buu yidhi haddana ilaah subxaana wa tacaala. nebiga sala allahu calayh wasalam asagoo sifaynaya wuxuu yidhi masarkooda macnaha safaleetiga ay madaxa saartaan khayrun min addunya wamaa fiiha. adduunkii waxa kor saaran wuu ka khayr badan yahay. xabad tintooda haddii adduunka la keeno cadceedda nuurkao dhan wuu ka baaba'ayaa, wuu ka damayaa. waxay wataan 27 dhar oo xariir ah, markaasaa jasadkooda la arkayaa. hadday iska faydaan oo jasadkooda la fiiriyo waxaa laga arkayaa shanshadooda iyo lugahooda, mukha iyo dhuuxa gudaha min alxisni, qurux daraaddeed. biyaha ay cabayaan dhuuntooda sida muraayad oo kalea looga arkayaa. sifaadkuu nebigu ku tilmaamay xuuralcaynta wax sahlan ma aha. mar allaala markay saa u qaadaan yaa la arkayaa mataqaanaa intay ay saaran tahay xariirta. markay iska qaadaan baa shanshadooda waxaa laga arkayaa mukha iyo dhuuxa gudaha markaa ku jira. waa xusni, waa qurux, waa mataqaanaa wanaag, waa haybad ilaahay siiye subxaana wa tacaala. yaa iskale wiil mu'min ah, yaa loogu talagalay wiil iimaan leh, yaa loogu talagalay inuu ku raaxaysto wiil noocaas oo kale ah. taasuu ilaahay u tilmaamaya subxaana wa tacaala. haddaba mid kastoo ayay ka mid ah zawjataan baa la siinayaa. 2 dumar riwaayad baa tilmaantay, 27 riwaayad baa tilmaantay. 2 waa kuwa adduunka, 7 waa xuuralcayn, ama 7 baa kuwa adduunka ah, 2 waa xuuralcayn. say noqotaba ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala. say noqoto ha la dadaalo. jannada xaaladeedu waa sida wax la sifayn karaa ma aha ilaa in la galo oo qofka uu soo fiiriyo oo waxa ilaahay meesha uu ku dhex sameeyey iyo waxa meesha ku dhex jira uu markaas soo arka maahane. 2 qofood oo khilaaf ka dhexeeya ma jiro. qurfad bay iskula wada jiraan. mid kale u xanaaqaysaa ma laha, mid kale eegaysaa male buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. khayr iyo wanaag mid uga soo horaysay ma laha. wa cindahum qaasiraatu darf lam yadmidhunna insun qablahum walaa jaan. ayaga hortooda insi iyo jinni wax taabtay ma laha. ayagaa ugu horeeya. isla markay isticmaalaan waa wada bikro, isla markiibay sidaana yihiin. ma aha dhibaato kale, ma aha mashaakil kale, ma aha waxyaabo kale. bacdamay saas ay tahay ayaa wiil kasta oo muslim ah waxaa aad iyo aad u fiican inuu xaaladdaa ku dadaalo. gabdhaha muslimaadka u dadaala. jannu ilaah idinkugu talagalay subxaana wa tacaala. ballarkeeda ay samaawaadkii arlada la eg tahay. oo haddaad dadaashaan, oo haddaad awaamirta ilaah fulisaan, waxa aad maanta ku jirtaan haddaad iska daysaan. gabdhihii fahmay in jannadu ay qiimo leedahay adduunkay ka tageen. alaabtii waxyaabihii guryahooda yiilay waxay ka doorteen kuwa aakhiro. arooska qiimaha badan waxay u dhigteen arooskii aakhiro. waayo waa lagu mehrinayaa. ilaah subxaana wa tacaala markuu tilmaamay muxuu yidhi kadalika wazawajnaahum bixuurin ciin. gabdho xuuralcayna ayaan u guurinaynaa. laa yaduuquuna fiiha almowt. geeri ma jirto, la dhiman maayo, la kala tegi maayo, laysfuri maayo, laysku xanaaqi maayo, laysgaraaci maayo. jannaa lagu dhex jiraa. wanasacnaa maa fii suduurihim min qil ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin. sirri korkooday markaa isku qaabilayaan. haddaba jannada xaaladeeda waa sidaa. maalin baa nin boqor ah dhar uu lahaa baa soo qabtay. dahab fara badan baa ku jiray. jaako uu wato qurux badan. aad bay gacanta saa ugu taataabteen saxaabada. mala yaabantihiin buu yidhi. wallaahi aftirashada mandiilka safaleetiga sacad ibni mucaad uu aftirsiga jannada uu ku leeyahay yaa ka khayr badan adduunkii waxa korkiisa ahaadayba. waa hal safaleeti, waa hal geedka afka lagu tirtiraay qofka markuu qadeeyey ama uu cunay qashinka lagu rido kaasaaba ka qiimo badan buu yidhi. jannada qofka markuu arko ama macaankeeda uu dareemo adduunkuu ka tagaa, adduunkuu nacaa. wax kasta meeshaasuu u hormarsadaa si uu qiimaha iyo nolosha qiimaha badan u gaaro. wax kastoo kaa hor istaagaya jannada iska ilaali. wax walba oo jannada kaa leexinaya ka digtoonow. wax kastoo ku seejinaya jannada faraha ka qaad. ku dadaal wax allaala wixii markaa ku gaarsiinaya. wixii kaa mancinaya waa dhibaato, waa kuu cadow ee iska ilaali. dadkii waxaa laga kari la'yahay maanta nolol fiican baa jirtee mushqaayadda iyo ujarada iyo abaalmarkaasuu ilaahay diyaariyeye hawsha si fiican u qabta. ha la dadaalo. meeshaan lagu heli maayo, waa la rafaadaa,
waa la dhibtoonaa, waa la tukanaa, waa la soomaa, waad seexatay, isla markii saas waxaa la gaarayaa inaad kacdad rabtaa, waa caajisnaysaa, waa diidaysaa. markaad isdhibtood xoog u istaagto markaabaa lagu siinayaa. dadaal bay u baahan tahay, juhdi bay u baahan tahay. qofku waa inuu aad ugu dadaalaa sow khayrkaa u heli lahaa, sow raashinkaa jannada uu cuni lahaa, sow raashinkaa qiimaha badan u qaadan lahaa, dharkaa xariirta ee la labisanayo sidii loogu labisi lahaa. dumarow ogaada, dahabka adduunka maanta dahab ka fiican baa meeshaa jira. nebiga sala allahu calayh wasalam wuu tilmaamay dadka waa la qurxinayaa, yuxallawna fiiha min asaawira min dahab buu yidhi ilaahay. asaawir dahab aa lagu qurxinayaa. dahabka adduunka maanta waa lagu dagaalamay, waa lagu diriray. war gacantaada muggeedaa lagu qurxinaa qiyaamaha, saa doontaa lagu qurxinaa. heer wuxuu gaaray nebiga uu yidhaahdo qofka mu'minka ah dahabka waxaa loogu qurxiyaa meesha uu wisqaadka gaarsiiyo. meesha wisqaadka aad gaarsiisaa lagu gaarsiinayaa. markaasuu abaa hurayra wuxuu dhaqi jiray baa layidhi gacanta markuu dhaqay ilaa garabka, markuu lugta dhaqay ilaa jilbaha. intaa waxaan rabaa buu dhihi jiray in quruxda lay gaarsiiye maalinta qiyaamaha, aad la igu qurxiyo, saa la igu badiyo. maanta dahab oo dhammaan naar lagu galaayo, oo meel laga keena aan la ogeyn, oo dulli iyo dhibaato lagu soo helay, oo sida lagu shaqeeyey ilaahay ogyahay subxaana wa tacaala, oon zaka laga bixinin, oo cadaab lagu mutaysanaya, kaasaa markaa lagu soconaa. kii qiyaamahana waa la hilmaamay. gabar saxaabiyad ahoo dahab wadatay ayaa la yidhi zake ma ka bixisay? maya. ma jeceshahay iyadoo naara inuu ilaahay kuu geli? way tuurtay, way ka oroday baa la yidhi. naarba markay maqlaan waa carari jireen, markay janno maqlaanna waa usoo degdegi jireen. bacdamay saa tahay hala dadaalo. jannada ma aha wax laga sheekayn karo, laakiin waa wax u baahan wax loo camal qabto, gudaheeda la galo markaa la fiiriyo. ilaahay idinkii dadka ahlujanna wada sheekaysan doonaan, way is ogaan doonaan, waa lasoo xasuusinayaa. waxyaabaha adduunkaa lasoo wada xasuusanaa, qofba qofka kale waa u sheekaynaa. bacdamaa jannada khayrka iyo wanaagga ay dhex taalo oo arrimooyinka ilaahay uu dhex yeelay, iyo dadkii muslimiinta jannada gelayaan. malaa'ig baa albaab kasta uga soo gelaysa, way salaamayaan. ilaahay baa u imaanaya, salaamun qawlan min rabbi raxiim, waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab, salaamun calaykum bima sabartum. war waad soo sabirteene waa abaalkiina la leeyahay, fa nicma cuqba daar. intaasoo dhan markay dhacdo oo argagixii laga ilaaliyo, ay janno ku raaxaysanayaan, ilaahay baa la soo hadlaya ahlu jannaha. muxuu leeyahay? yaa ahlu janna beeg yaa rabbi iweydiista. aad bay ula yaabayaan. yaa rabbi alam tabyad wujuuhana, miyaadan wejigeena caddaynin? miyaadan jannana gelinin? miyaadan walbahaarkii aakhire naga ilaalinin? miyaadan na siin waxaadan caalamka siinin? ilaahayow waxa kalen codsanayna maxaa waaye? ilaahow maxaan codsanaynaa? war xusuusta wax kale hadday idinka maqan yihiin. markaasay leeyihiin wax naga maqan ma laha. intaa ka bacdi ilaahay wuxuu faydayaa kashifkigii iyo xijaabkii ayaga iyo rabbi u dhexeeyey subxaana wa tacaala. ilaahay ayay hal mar arkayaan subxaana wa tacaala. ma jira shay ay kaga farxad badan yihiin aragtida ilaahay subxaana wa tacaala. aragtida ilaahay oo indhahooda ilaahay ku arkeen. indhihii khayrkii wanaagga lagu fiirsadaa ilaahay lagu arkaa. indhihii ilaahay lagu caabudaa ilaahay lagu arkaa. indhihii alla dartii biyo ay uga yimaadeena ilaahay lagu arkaa. ma jira shay ay kaga shawq iyo hilo u badan yihiin aragtida ilaah subxaana wa tacaala. ilaahay ma arkaynaa maalinta qiyaama? saxaabadaa weydiisay su-aashaa nebiga. wuxuu ugu jawaabay inakum satara rabbakum, rabbigiin waad arkaysaan kamaa tarawna haada alqamar, saad dayxaad ugu jeedaan ole. habeen 14 buu bisha farta ugu taagay. nin kasta asoo gurigiisa jooga, ninkii waddan kala jooga, ninkii soomaali jooga, ninkii carab jooga, asoon isciriirin. war iga leexo, madaxaaga iga qariye ma jirto. nin kasta asoo meeshiisa fadhiya soo ma arkin dayaxa. saasoo kale aad u arkaysaan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. laakiin yaa arkaayo ahlu janno, yaa arkaayo qof mu'min ah, yaa arkaayo gabar daacad ilaahay ku dadaashay, awaamir ilaahay ku socotay, khayrkii wanaagga ku socotay, diinta ilaahay kor u qaaday. ilaahay bay arkaysaa subxaana wa tacaala. haddaba indhahaaga haddaad doonaysay inaad ilaahay ku aragto, shaqay oo dadaal, diinta ilaahayna ku soco subxaana wa tacaala. mar kaleu ilaah odhanayaa maxaan idin siiyaa, maxaan kaloo codsanaa? raalli ahaashadeeda maanta idiin waajibtay, maanta wixii ka dambeeya ma idin xanaaqay buu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala. ayaduna waa darajo kale. raadi ahaashada ilaahay iyo jannada, raadi ahaashada ilaahay baa weyn. wa ridwaanullaahi akbar. ilaahay raadi ahaashadiisaa wax kasta ka weyn subxaana wa tacaala. xaalku intaasuu kusoo gebagaboobayaa. meeshaasaa lagu jirayaa, meeshaasaan laga soo baxaynin. qolana meeshaasay ku qaylinayaan oo maqaarkoodu ku gubanaa, oo saacadii halkii saacba 70 jeer baa la bedelaa qofka ahlu naarka maqaarkiisa iyo jildigiisa intuu markaa gubto. saasuu markaa ku soconaa. arrintiisana waa sidaa. hal nin baa soo haraya marka, waa gebagabadii jannada. halkaa nin bannaankuu taagan yahay.
ilaahay buu ka codsanayaa subxaana wa tacaala in jannada la geliyo. ama waxaa la yidhi naartuu ka soo baxay, markaasuu ilaah wuxuu leeyahay orod jannada gal. waa soo baxayaa, jannadii buu imaanayaa, wuxuu arkaa meeshii buuxda, wuu soo noqonayaa. rabbi buu leeyahay jannadii way buuxdaa. war bax galaa la leeyahay, jannada waa buuxdaa meehe, waa baxayaa, waxaa loo malagelinaya inay buuxdo. ilaahay buu usoo noqonaa subxaana wa tacaala, markaasuu leeyahay ilaahay tamani, wax sheego wax sheego wax sheego. waxbuu sheeganayaa ilaa ay ka go'do. war intii aad sheegtay iyo tobanlaabkeedaan ku siiyeye jannada gal buu ilaahay leeyahay. markaasuu oranayaa yaa rabbi, ilaahayow atastahziu bi wa anta rabu alcaalamiin, ma igu jeesjeesaysaa adigoo caalamiinta rabbigeedii ah? fadaxika allah, ilahay baa ku qoslaya subxaana wa tacaala. jannada gal baa la leeyahay, jannadii buu gelayaa. maqcadkii iyo meeshii uu lahaa buu arkayaa. mar allaala markii la siiy wuxuu leeyahay allaahu akbar, ilaahay baa weyn, wallaahi qof iga sarreeya maba ku jiraba jannada, asaa ugu hooseeya buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. kii u hooseeyey hadduu u maleey ninka ugu sarreeyo, kan u sarreeya xaaladiisa ka warrama walaalayaal, way ka sii daran tahay. bacdamaa ahlu naarka ninka ugu naar hooseeya wuxuu leeyahay waa nin lagu fadhiisiiyey ama lagu istaajiyey laba bulkeeti oo naar ah lagu babinaa, maskaxdiisa karaysa buu dhahay nebiga. markaasuu leeyahay wax iga naar adag maba ku jiraba, asaana ugu hooseeya. ka warrama qofka markaa ugu sarreeyana wuu ka daran yahay. waa la isbooqbooqanayaa, waa laisi soo salaamayaa, waa la sheekaysanayaa, naartaa la tegaa, waa la soo daawanaa. nin baa dhahay saaxiib baan lahaan jiray oo i dhihi jiray war ilaahay maar kasta maka cabsanay adiga, war naar ina waxaas ma jirtay iska daa, naar jannadii waan ka waayey, naarta aan ka soo fiiriya yaa i raacaya. dad badan baa raacaya, way soo fiirinayaan, wuxuu ka arkayaa fii sawaa'i ljaxiim, jaxiima salkeeda asoo ka dhex oynaya. markaasuu leeyahay tallaahi in kidta la turdiin, ilaahay baan ku dhaartay waxaad sigtay inaad i halaagto. walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin, ilaahay nimcadiisaa isoo gaartay maahane kuwa maanta meesha la keeno ayaan ka mid ahaan lahaa. qoys baa jira ayagoo dhan jannada wada gelaya, dad baa jira aabbayaalkood naarta ay gelinayo ayago meesha ay joogaan. waxaa jira waxyaabo fara badan, bal camal baa lagu kala baxayaa maalinta qiyaamo. ilaah xaqaansa ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo, ahluljannana markaa naga dhigo. jannada oo laga sheekayna haddii la dhahana laga bixi maayee, bal aan dadaalna keliyasaan gudaheeda u galno oon u soo aragno waxa ilaahay noogu diyaariyey subxaana wa tacaala. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.